kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba waad naga daawanaysaan iyo xilli walba idin tahayba kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanay Dr. Cabdi Shire Warsame oo kamid ah guddiga hogaaminta golaha nabadda iyo midnimada gobolada Jubba gaar ahaan u qaabilsan arrimaha wada xaajoodka. Marka hore ku soo dhaw TV-ga caalamiga Sob News TV iyo Kismaayo 24. Mahadsantiin. Marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa socdaalkii aad ku mareysay qaaradda Yurub oo hadda aad dhawaan soo gaartay wadanka Holland. Bismillahirrahmanirrahim. Marka ugu horeysa waxaan ka mahadcelinayaa fursaddan aan isku helay oo adiisiiseen inaan halkan munaasabadan isugu nimaano. Aniga waxaan bariyahan maraynay dalalka Yurub jaaliyadaha jooga ee Soomaaliyeed. waxaan hadda soo maray dalka Ingiriiska, Jarmalka iyo hadda Netherlands oo joogno kuwa kalena oo ku sii soconaa. waxaanan ujeedada socdaalka iyagu ahayd waxa la yiraahdaa waxa jira xoog wadaag wuxuu abuuraa dareen wadaagna wuxuu dhalaa yool wadaag wuxuu dhalaa himilo wadaag inaanu dadka naga Soomaaliyeed arrimaha aanu ku dhex jirno oo dalka ka jira gaar ahaan kuwa gobolada Jubba ka socda aanu xogta la wadaagno dareenkooda ogaano tala wadaagna la noqono ayaanu socdaalka iyagu ahaa wax badan baan kala faa'iidnay. waxaad iga waran badan xaaladda Jubbooyinka inta aad ka og tahay maxaa idin qabsoomay idinka dhanka Jubbooyinka gobolada Jubba oo muxuu ahaa ka kooban gedo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose runtii waxaa jirtay heshiis lagu saxay magaalada Addis Ababa oo la yiraahdo Addis Ababa Agreement oo goboladaas u sameynayay maamulka meel gaar ah maamulkaas ku meel gaarka oo muddo 2 sano inuu jiray heshiiskaasi wuxuu lahaa geedi socod cad buu lahaa oo asaga ku dhex jira geedi socodkaasi wuxuu sheegayay in 2 shir la qabto shirka koowaad magaalada Muqdisho lagu qabto shirka labaadna lagu qabto magaalada Kismaayo. shirka koowaad waxaa loogu talagalay in la isugu keeno dhinacyadii ku dagaalamay meesha shirkaasi uu ka dhacay magaalada Muqdisho dawladuna sidii uu ahaabay u qabatay golaha wasiirada ku dhawaaqay guddi golaha wasiirada hogaaminayay dhinacyadii baa la isugu keenay heshiis xabad joojin baa lagu saxay marka ka bacdina waxay ahayd in la sii wado geedi socodkii markii dawladii khalkhal galay oo arrintii xukuumadii hore ee Saacid isqabadkii jiray waxay noqotay in si aan ahayn sidii heshiiska ku qoreed loo maamulo. Axmed Madoobe oo ahaa hogaamiyaha ku meel gaarka sida ku qorxsan heshiiska Addis Ababa uu iska magacaawdo dad taasoo ahayd maamulka waxaa wada dhisahaya dawladda iyo Axmed Madoobe sida heshiiska Addis Ababa marka taas halkaasna arrintii way sii murgisay isqaqabadkeedii iyo wixiina waa sii xumeeyeen marka xaaladahaasi waxaan is leenahay heshiiskii sidii uu ahaa loomana dhaqan gelin waana laga gaabiyay. waxaa jira dhawaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Sheekh heshiisiin uu waday oo ka wada Jubbooyinka oo idin garabkiina sacda u diideen ma noo sharxi kartaa sababaha keenay ra'iisul wasaare Cabdi Weli runtii waxa ka muuqata dareen weyn oo uu danaynayo inuu dib u heshiisiinta arrimaha dib u heshiisiinta ee Soomaaliya wax ka qabto laakiin waxaan is leenahay arrintan hadda Kismaayo markii uu aaday arrimo aan iyadoo laga gacan buuxsan oo loo diyaar garoobin oo wax ka dhiman yihiin ayaa socdaalkiisu ku aaday waxyaabahaasna waxay ahayd annagu waxaan rabnaa horta in meeshaan nabad guud oo dadka Soomaalida oo dhan wadaagaan in laga helo nabad koox lama rabo nabad qabiil gaar ah lama rabo nabad group gaar ah loo sameeyaa lama rabo marka ra'iisul wasaaraha tigidiisii anagu ra'iisul wasaaraha waxaan u soo jeedinay waxa ugu sahlan oo lagu dhalin karaa nabadda inay tahay shirweynihii dib u heshiisiinta in la qabto laakiin ra'iisul wasaaraha arrintaas asaga si kale ugu muuqatay islaamaana garan waxa uu ka bilaabay inuu yiraahdo ciidamada muxuu ahaa ciidamadii meesha ku dagaalay qolana magaalada joogta gudaheeda qolana dibadda joogta
marka qoladii dibadda joogtay hubkooda inta soo dhigaan qolada gudaha joogtay ay soo dhiibaan arrintaas waxaa noogu muuqatay waa arrintii la rabay inay kasoo baxdo shirka hawlihii la rabay shirku inuu dhalo baa shirkii oo la qaban rabaa in la sameeyo marka arrintaas waa arrimahan diidnay dhinacaasay ka tahay laakiin annagu waxaan soo dhaweynaynaa waxaa weeye shirkii dib u heshiisiinta in la qabto shirkaas dib u heshiisiinta waxaan ka rabnaa inay kasoo baxaan 3 shay kow dib u heshiisiin beelaha Soomaaliyeed ee goboladaas dega oo dhan dhex marta labo geedi socod road map cad oo lagu dhamaystirayo maamulka meel gaarka ah maamul loo dhan yahay oo shaqayn kara oo Axmed Maxamed Islaan madax u yahay maxaan uga jeednaa maamul loo dhan yahay shaqayn kara waxaan uga jeednaa Axmed Maxamed Islaan hogaamiyaha ku meel gaarka weeye muddada soo socota oo halka sana u waarsanta laakiin dadka Soomaaliyeed waa inay dareemaan lahaansho ma ahna adigu gurigaaga wax isaga magacaabato dadku maamulay wax ka samaysteen inuu kala ka dhasho annagu taasaan danaynayna Axmed Madoobe maalintii iskalaartay ilaa hadda wuxuu sheegay inuu yahay madaxweynaha Juba dowladda Soomaaliyeed ay dhankooda xataa ay ogolaadeen idinkuna aad ka soo horjeedeen oo idinkana maaragtay aad ku qanacsanayn arrintaas miyaan si kala fogaansho keeni karin waxaa jirta Axmed Madoobe waxaa weeye hogaamiyaha ku meel gaarka ah maamulka Juba cid ama dawladda ha noqoto ama cid kale ha noqoto ciddii magac kale ugu yeerta waa cid magac jabhadeed baan u aqoonsanaynaa inuu yahay laakiin annagu waxaan u aqoonsanahay Addis Ababa agreement maadaama aan aqbalay Axmed Maxamed Islaan waxaan u naqaanaa hogaamiyaha ku meel gaarka ah laakiin maamul kale oo sharciyan meesha ka jira ma jiro waxa kale waa waxaan ku imaan qaabkii sharciga ah waana wax ay ka gaabiyeen labada dawladood dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia oo garantiirkii ahay oo doorkoodii ka gaabinaya kana meermeeraya baan qabaa in arrimahaas ay xumeynayaan ciidamo la sheegay inuu wato sarkaal lagu magacaabo Faarax Daahir Shidane ayaa dhawaan soo gaaray leeyahay agtiina taasi maxaa ka jiro ciidamadaas waa jiraan waxay ku isugu jiraan ciidamadii militariga ahaa oo rag ahaayo ku xiraa muddo ku xiraa meeshan jaamacadda iyo dad markii ra'iisul wasaaruhu yimid si loo khalday oo la soo galiyay weeye oo wixii loo sheegay ay socon waayeen ciidamadaas waa soo galeen ciidamadoodii saldhigoodii way dib ugu soo noqdeen kuwa kale oo magaalada ka baxayna hadday soo galayaan dagaalka ka dhaxeeyo Axmed Madoobe iyo garabkiina ma laga yaabaa inuu fursad cad siiyo nimanka nabadiidka ay ka soo horjeeda al-shabaab annaka iyo muxuu ahaa hogaamiyaha ku meel gaarka ah maamulka ku meel gaarka ah Juba dagaal naga dhaxeeyo laakiin waxaa naga dhex jira arrintii heshiiskii Addis Ababa oo asagu wax ku ahaa baan anaguna waxaan leenahay heshiiskii hala dhamaystiro asna waa ka wareegaya mas'uuliyadaasna waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed baa mas'uuliyadda ugu weyn oo gaabiskaas mas'uuliyadda qaadaysa waxaa jiro mucaaradkiina dal kamid ah sida Cabdiqaadir Luqdaare Cabdi Baalay Xasan Baasto dadka oo dhan waxay ku biireen dalka Axmed Madoobe miyay dhaawac idin keenin ka dhakin horta muxuu ahaa ninkii la yiraahdo Luqdaare annaga nagama tirsanayn waa arrin aan hadda rabin inaan waqti badan ku dhumiyo sidii lagu keenay iyo ciddii keensatay iyo dawladihii keensaday waa arrin dheer weeye laakiin raggan kale oo ahayd Iftiin iyo Cabdi Baalay iyo waxay raggii madaxweynayaasha sheegtay laakiin markii dambe oo annagu aan filaynay in wada hadal la sameeyo arrinta la dhamaystiro Axmed Madoobe asagoo muujinaya inuusan niyadsami rabin inuu ku dhameeyo arrinta yaa nimankan si loo khaldo laakiin nimanka wixii laga rabay waxay ahayd inay ciidamadooda jooga goob weyn soo xareeyaan ciidamadoodiina waa diideen marka ayagoo shakhsiyaad ah bay Axmed Madoobe la joogaan marka waxba naga dhimayaan dadka ayaa wax taraya maahan qalab waxaad leedahay waxa dhibaato ma gaarsiin dhawaan waxaa dagaal ka dhacay Gedo ku saabsan dhanka Jubbooyinka inkastoo hadda la xaliyay wax dhibaato ay ka jirin ka maamulahan idinka dagaalkaas ay warataan annagu waxaan u aragnaa dagaalkaas runtii nasiib darro meesha ka dhacday iyo arrimo laga maleegay muxuu ahaa magaalada Kismaayo oo Axmed Madoobe iyo ragga oo ku adeeganaya ay ka dambeeyaan oo ah gobolka Gedo in laga abuuro xasilooni darro dadka deegaankaasna lagu barakiciyo
taasoo xasilooni daradaasoo gada keliya aan ka jirin hadda ruuxeeda laga samaynayo magaalada Kismaayo barakicin baa laga wadaa. Barakicinta laga wadaa waxaa weeye dad baan qaxooti baan meel dejinaynaa, dad qabiil looga rarayaa dhulkii. Hadda waxaa lagu leynayaa shalaydan dad baa la leynayo oo lagu leynayo maalin walba dad baa la laayaa. Marka arrimaha gado kaligeed ma caafimaad qabi karto. gobolada Jubba waa isku xiran yihiin haddii maamul waxtara oo ay ku gaaraan horumar aan la helin waa iska cawabari bay waxoodu noqonayaan. laakiin hadda arrintaas muxuu ahaa beled xaawo gacanta lagu qabtay, gacantaan ku haynaa, shacbiguna dareen fiican buu ka muujiyey. waxaan rajaynayaa waxaasoo kale inaysan dib ugu soo noqon gobolka. maadaama idinku aad leedihiin waxaan rabnaa in maaragtay sidii dowladda ku baaqday shir loo dhan yahay, dadka deegaanka ay u dhan yihiin. axmedow maxaa u diidan inuu isu keeno ummadda jubbooyinkayda? dowladda Soomaaliyeed baa hadda caqabad u tahay. hadda caqabada peace processka waxaa weeye dowladda oon ku dheganayn inay Addis Ababa agreement siday ahayd u fuliso. sababtoo ah waxay ahayd in Axmed Madoobe dekada iyo aeroboortka lagala wareego 6 bilood gudaheed, dowladdu kala ma wareegin. waxay ahayd muxuu ahaa in shirka la qabto. shirka in la qabto in dowladdu cid kale ee ka barida maahan. annaga dowladdanadii weeye ayadaa la rabaa in inta dhex fadhiisato sidii shacbigu ku heli lahaa. maahan Axmed Madoobe keligii in la empower gareeyo. ra'iisul wasaaruhu meeshuu tegay, wasaaraha meeshuu u tegay empower gareyn Axmed Madoobe keliya keentay. waxay keentay qabaa'ilada Soomaaliya blocks in la soo cesho maaha. blocks in la soo cesho haddii la soo cesho hawiye daarood digli mirifle Soomaaliya waxay u noqonaysaa 91 inaan loo celin baa fiican. Soomaaliya waa in systemka lagu soo dabaalaa. waxaa looga hortagi karaa shirweyne guud in la sameeyo yaa looga hortagi karaa, maahan qabaa'ilo gaara iyo shirbiyo gaara in la heshiisiiyo. taasaa looga hortagi karaa. 24 sano Soomaaliya waxay ku soo jirtay dhibaato, dagaalo iyo burbur. inkastoo hadda iftiin yar la helay oo Soomaalinimadii dib u soo noqotay, garabkiina waa garab hubeysan, dharkaana ciidamo baa joogo. qaabkee looga hortagi karaa inuu dig dhamad oo daadan? qaabkee looga hortagi karaa in wiil dambe oo Soomaalida oo dhiman oo la isugu yimaado miiska wada hadalka si Soomaalinimo iyo midnimo looga hadlo? golaha nabadda iyo midnimada gobolada Jubba maaha garab hubeysan. waa gole ay ku midoobeen dadweynaha nabadda jecel ee ku nool gobolada Jubba. laakiin way jiraan dad ciidamo ah oo muxuu ahaa golahan taageerayaashiisa kamid ah oo magaalada xoog looga soo saaray. waxaan anigu ka soo jeednaa arrinta Soomaaliya marna xoog lagu xaliyo. waxaan doonaynaa arrinta Soomaaliya miiska wada hadalka in la keeno. arrintaas weeye waxaan uga daba wareegaynaa Addis Ababa agreement oo aan is leenahay markeedii hore la sameynayay ba xuquuqdiina loogu xadgudbay, laakiin annagoo danaynayna wiilka Soomaaliyeed inuusan xabad ku dhiman, annagoo danaynayna walaaltinimada dadka Soomaaliyeed in la soo celiyo baanu heshiiska Addis Ababa u aqbalnay. waxaanu ka rajaynaynaa dowladda Soomaaliya oo dowladdii dadka ah oo dowladdii dalka ah inay dadka Soomaaliyeed cadaalad u soo in la iska daayo qof jeclaysiga iyo koox nabcaysiga. dowladda Ethiopia oo garantiirka ah waxaa weeye dadaal bay samaysay. waxaan rajaynaynaa inay ku dheganaato Addis Ababa agreement inay hirgasho. waa garta ugu dambeyn, maadaama aad tahay aqoonyahan Soomaaliyeed haddana doonaya in maaragtay dig dambe u daadan, shacab ku nool Jubba maxaad ugu baaqi lahayd? shacbiga gobolada Jubba ku nool waxaan ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda iyo walaaltinimadooda. yaan ugu baaqayaa. waxaan ugu baaqayaa inay qalbisan ku wajahaan dhibaatada hortaala. waxaan ugu baaqayaa inay aaminaan inay ayagu isku dhan yihiin oo ay isku khasban yihiin. waxaana leeyahay shacbigu ha ogaado qoriga iyo qofka waxaa xoog badan qofka, waxaana guuleysta qofka. waxba qalab iyo qoryo meel laga soo guray yaysan niyad jabinin. waxaan rajaynaynaa shacbiga gobolada Jubba inuu noqdo shacbi ku walaalooba deegaanadaas, shacbi aan isku gumaysan, shacbi aan qabiil isu sheegan, shacbi aan isugu faanin blocks iyo waxaan waxba tiray. Dr. Cabdi Shire aad baad u mahadsantahay wareysiga gaarka aad siisay Kismaayo 24 iyo Som News TV. waa mahadsantahay. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wareysiga gaarka ah aan la yeelanay Dr. Cabdi Shire oo dhawaan soo gaaray wadanka Holland kuna maraya qaaradda Yurub wada tashi oo ka wado dhankiisa Jubbo. dhanka farsamada waa Maxamed Xasan Shabka. waxaan la socodsiiyay anigoo ah Saad Cali Casayr. tan intaanu kulmayna barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo
أمان الله. Thank you.